muxuu Enzo Maresca ka yiri guushii kooxdiisu ay ka gaartay Barcelona? Enzo Maresca ayaa amaanay Chelsea kadib guushii 3-2 ahayd ay ka gaareen Barcelona tartanka Champions League ciyaar ka dhacday Stamford Bridge. Maresca wuxuu yiri waa guul wanaagsan, wax ka badan taas ma jiraan. Waxaan ogeyn muhiimadda kulankan sida kulan kasta oo kale. inaad Barcelona garaacdo waa wax fiican, waana ku faraxsanahay. Isagoo ka hadlayay heerka kooxda ayuu intaas ku daray. Dhammaan kulamadu way adkaayeen. Qarabaq ayaan dhibac kulaminay, Benfica iyo Ajax waan ka adkaanay. Bayern Munich ayaa naga badisay kulankii ugu dambeeyay. Barcelona waxay ku fiican tahay markii kubaddu gacantooda ku jirto. Sidaa darteed anaga ayaa isku daynay inaan kubadda haysano. Xitaa markaan ahayn 11 dareenkayga wuxuu ahaa mid wanaagsan, sababtoo ah kooxda si fiican ayay u ciyaaraysay. Difaacu waa muhiim. bilihii ugu dambeeyay waxaan bilownay inaan dhameysano kulamada Premier League anagoo shabaqeena nadiif yahay, taasoo muhiim u ah yoolalka waaweyn. Chelsea ayaa sidaas ku xoojisay rajadeeda Champions League iyadoo soo bandhigtay ciyaar dhameystiran oo weerar iyo difaac isugu jira. dhinaca kale, Pep Guardiola oo shaaciyay cidda iska leh mas'uuliyadda guuldaradii kooxdiisu ka soo gaartay Bayer Leverkusen. Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa dusha saartay mas'uuliyadda guuldaradii la yaabka lahayd ee kooxdiisu ka soo gaartay Bayer Leverkusen kulan ka tirsanaa Champions League fiidnimadii Talaadada. Guardiola ayaa ciyaarta soo galay isagoo sameeyay 10 bedel oo ciyaaray kulankii Newcastle United Sabtidii. waxa uu keedka dhigay ciyaartoy waaweyn sida Erling Haaland, Jeremy Doku, Phil Foden, Donnarumma iyo Ruben Dias. Tactikidiisa ciyaareed ma shaqeen, iyadoo Alejandro Grimaldo iyo Patrick Schick ay goolal ka dhaliyeen qayb kasta oo ciyaarta ka mid ah, taasoo Leverkusen siisay guul garoonka Etihad ah. Guardiola ayaa kadib wuxuu soo geliyay Haaland, Foden, Doku iyo Ryan Cherki, balse waqtigu aad ayuu u koobnaa. ciyaarta ayaana sidaas ku dhamaatay iyadoo kooxda Jarmalka aan wax gool ah laga dhalin. fiid wanaagsan saaxiibayaal, meel baad naga daawanaysaan. warbixintana waxay qayb ka tahay barnaamijkeennii bandhiga ciyaaraha oo aan caawa ku soo qaatay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena sii share gareyso. haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. mahadsanid.